another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your boy. Guddiga samata bixinta caalamiga oo soo saaray warbixintaasoo u badan xaaladda Soomaaliya iyo Afghanistan. Waxaa idiin soo diyaarshay Nasra Salaybaan. Laak iyo sheer iideh. Saaxiib mahadsanid. Guddiga samata bixinta caalamiga ah waa urur gargaar oo qadiimi ah. Waxaa la aas-aasay USA 1933 iyadoo ay soo jeedinayaan qaxootigii Yuhuudiga ahaa ee Albert Einstein si uu dadka uga badbaadiyo taliskii Naasiga ee Jarmalka. Maanta, waxaa ka go'an in ay caawiso kuwa u baahan ee ku sugan meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ee adduunka. Sanad kastana waxa ay soo saartaa waxa loogu yeero liiska xaaladaha degdega ah 20 waddan oo si gaar ah khatar ugu jira. Waxay baartaa arrimo ay ka mid yihiin adkaysiga dhaqaalaha, xoojinta iskahorimaadyada, masiibooyinka dabiiciga ah iyo barakaca. Waddamada qalalaasuhu ka jirana waxay kala yihiin sidan Soomaaliya, Itoobiya, Afghanistan, Democratic Republic of Congo, Yemen, Syria, South Sudan, Burkina Faso, Haiti iyo Ukraine. Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Chad, Lubnaan, Mali, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Sudan iyo Venezuela ayaa ku jira kaalinta 11 ilaa 20aad. Kordhinta farqiga maalgelinta ee gargaarka caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, sida ay ku nuuxnuuxsatay, xulitaanka waddamadu maaha mid ku saabsan darnaanta dhibaatooyinka hadda jira, laakiin waxay ku saabsan yihiin khatarta ka sii daridda, tusaale ahaan saadaalinta horumarka mustaqbalka iyo rajada ka hortagga iyaga waqti wanaagsan masiibo. Dhibaatada gaajada ee Soomaaliya. Soomaaliya, sannado badan oo abaaro ah, colaado 10 sano ah, iyo qiimaha cuntada adduunka oo sarreeya ayaa isu imaanaya. Fariinta ugu muhiimsan sanadkan waa George Redings oo ka socda IRI ayaa u sheegay in xasaradaha ay sii kordhayaan oo ay sii kordhayaan, laakiin sidoo kale inaan wax ka qaban karno. Liiska xaaladaha degdega ah waxa uu muujinayaa heerka diiwaangelinta baahiyaha bini'aadantinimo ee 2022 waxaana uu saadaaliyaa khataro baan sanadka 2023 horumarka muddada dheer sidoo kale waa walaac. Sida laga soo xigtay 8 milyan oo qof adduunka oo dhan ayaa u baahday gargaar sanadka 2014. Maanta waa 339 milyan. oo 9% iyaga ka mid ah waxay ku nool yihiin dalalka ku jira liiska xaaladaha degdega ah. Isla mar ahaantaana, farqiga maalgelinta ee gargaarka caalamiga ah ayaa si tartiib ah u kordhay sannadihii u dambeeyey. Baahidu way sii kordhaysaa, laakiin wax yar ayaa la bixiyaa. Warbixintu waxa kale oo ay tilmaamaysaa sinaan la'aanta sii kordhaysa, iyadoo iskahorimaadyada hubeysan, isbeddelka cimilada iyo qalaasaha dhaqaale ay sii kordhayaan tirada yar ee dadka adduunka ku nool inay sii xumeeyaan dhibaatooyinka. Meelaha kale ee horumarka dhaqaale ayaa ka saaraya tirada ugu badan ee dadka saboolnimada. Dareewalka ugu weyn ee dhibaatada iskahorimaadyada hubeysan. Ururku wuxuu u aqoonsaday iskahorimaadyada hubeysan, isbeddelka cimilada iyo qalaasaha dhaqaale inay yihiin 3 ugu muhiimsan ee dhibaatada keenaya. Ku dhowaad dhammaan dalalka la sheegay, qalalaasaha ayaa soo jiray muddo dheer, laakiin arrimahan ayaa uga sii daraya ama waxay dhaliyaan dhibaatooyin cusub. Colaadaha rabshadaha wata ayaa ah 80% baahiyaha bani'aadamnimada. Marar badan dadka rayidka ah ayaa ah kuwa dhiban. Iyadoo aan laga reebin dhammaan 20 waddan ee liiska daawashada ayaa la ildaran iskahorimaadyo hubeysan. Isbeddelka cimiladu waxay uga sii daraysaa xaaladaha degdega ah ee bini'aadantinimo ee dalal badan oo aad ugu nugul. Fowdada dhaqaalena waxay sii kordhisaa saboolnimada. Soomaaliya, abaaraha, colaadaha iyo qiimaha badarka oo sarreeya. 3 tusaale oo waddan ah oo ka yimid 3 qaaradood ayaa halkan lagu doortay. Soomaaliya ayaa liiska ugu sarreysa kaga jirta. Liiska cunto la'aan baan ayaa halkan ka dhalatay sannado badan oo abaaro ah iyo colaado 10 sano socday. Waxaa intaas dheer in Soomaaliya ay ku tiirsan tahay gobol cusub oo qalaase ah. Dagaalka Ukraine ka hor Soomaaliya waxa ay 9 ka keeni jirtay hadhuudhkeeda Ruushka iyo Ukraine, ayuu yiri George Redings. Sahaydan aad ayay u burburtay, qiimaha cunnada ee suuqyada caalamkana waa uu kordhay,
tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Waxaas oo dhan marka la isu geeyo waxay Soomaaliya ka dhigayaan dalka ugu dhibka badan adduunka ku jira liiska la socodka xaaladaha degdega ah. Afghanistan ayaa sanadkii hore kaalinta koowaad ahayd. Markan waxa ay yara hoos u dhacday kala saraynta, ma aha in arrimuhu halkaas ka soo roonaadeen, balse waxa ay ahayd in arrimuhu meelo kale ka sii xumaadeen. Dalka Afghanistan, shacabka ayaa dareemaya burburka dhaqaale ee soo wajahay tan iyo markii Taliban ay xukunka la wareegeen, reer galbeedkana ay isaga baxeen. Dhab ahaantii dadka oo dhammi waxay ku nool yihiin faqri, jiilaal dheer oo daran ayaa hadda bilaabmay. Qabo baahinta Afghanistan waxaa haysata gaajo baahsan. Inta badan kaalmada shisheeye ee Afghanistan ayaa ka maqan tan iyo markii Taliban la wareegeen awoodda Agosto 2021. Ukraine waxay ku jirtaa liiska waddan Yurub ah oo kaliya sababtoo ah dagaalka. Sida ay sheegtay UNHCR, dagaalku waxa uu dhaliyay dhibaatadii qaxooti ee ugu weynayd muddo 10 sano ah. Weerarada Ruushka ee kaabayaasha rayidka ayaa sababay in malaayiin qof ay waayaan koronto iyo biyo. Ukraine waxay ku jirtaa meel wanaagsan oo kaliya sababtoo ah gargaarka degdega ah iyo gargaarka ballaaran ee dibadda ka soo horjeeda guuldarrada. Sanadkan, waxay si gaar ah u baadhaysaa waxa loogu yeero ilaalinta. Taas macnaheedu waxa weeye in xarumaha bulshadu iyo gargaarkuba yihiin kuwo maxalli ah, kuwo qaran ah, ama heer caalami, kaas oo ka badbaadiya dadka dhibaataysan inay si buuxda u dhacaan. Si kastaba ha ahaatee, waxay u aragtaa ilaalinta kuwa la wiiqay dalal badan. Laakiin taasi ayuu qoray madaxweynaha David Miliband ku jira horudhaca warbixinta, ma aha lama huraan, laakiin waa go'aan miyir leh, waana meesha ay tahay in xalinta xasaradaha laga bilaabo. Haddii aan dib u dhisi karno xakamaynta, ayuu yiri George Redings, kadib waxaan bilaabi karnaa inaan yarayno baahiyaha bini'aadantinimo iyo dhibaatooyinka adduunka. Sidayaasha hadhuudhka ee Istanbul oo ka yimid Ukraine ayaa sugaya inay sii maraan Bosporus. Markii xamuulka ah ee Ukrainiyaanka loo oggolaaday inay dib u baxaan, waxay u ahayd nafis weyn waddamo badan oo Afrikaan ah oo si weyn ugu tiirsan soo dejinta qamadiga Ukraine. Waxay soo qaadatay tusaalooyin wanaagsan xabad joojinta ay qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ee Yemen, xilliga ugu dheer xasiloonida tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay 2014, dhismaha difaaca xeebaha ee Bangladesh kaas oo badbaadiyey kumanaan qof, iyo ugu dambayntii heshiiskii hadhuudhka ee qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay bishii Agosto ee sanadkan ee dagaalkii Ukraine, kaas oo dhoofinta badarka ee Ukraine dib loo bilaabi karo, gaar ahaan waddamada sida gaarka ah ugu tiirsan ee Afrika. Qalalaasaha ayay warbixintu qirsan tahay kuma aysan dhammaanin. Laakiin ugu yaraan saamaynta xasaradaha waa la yarayn karaa. Waxayna muujiyeen waa in aynaan u oggolaan guuldarrada in ay guulaysato.